عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مد الصوماليات مeel kasta aad joogtaan waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan oo wacan oo laashina min udug iyo mar labaad dhamaantiin horta waa idin salaamaya waan idin ka cudur daaranayaa muddo 2 bilood YouTube-kayga wax video ama soo gelin sabab jira awgood mashquul dalxiis aan iska dhex mushaaxayay familkii aan waqti la qaadanayay waan idin ka cudur daaranayaa dad badan oo message soo diray soo wadaaga asxaabtayda baa jira maxaa kugu dhacay xageed ku maqnayd horta sa iga fikiraysaan ilaahay idinkaga fikiro oo idin ilaaliyo dhamaantiin waa mahadsantiin maanta waxaan joogaa meel aad u qurux badan jawi aad qurux badan waliba waxa maanta ila jooga oo markii koobaad ah noloshayda channelkayga intaan soo duubay video qofkii ugu horeeyay oo ninoo channelkayga ka soo muuqda nasiibna u yeeshay inuu ka soo muuqdo walaalkay Axmed Daawud oo maanta maarta xalfad yar oo qurux badan aan isugu nimid dalxiis yar oo qurux badan ku soo dhawo aboo magaalada Muqdisho wax yar baan kaaga soo horeeyay laftirkayga martiba ahay laakiin ku soo dhawo minankaaga waaye channelkayga Aamin Udug ku soo dhawo aad baad mahadsantahay Aaminoy waan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaada mar labaad iyo mar saddexaadba kama daalay runtii inaan muuqaal ka soo muuqdo channelkaaga qiimaha leh Aamin Udug maadaama ahay wiilkii ugu horeeyay Soomaaliyada ka soo muuqda waan ka nasiib badan dadka kale oo dhan leeyahay waana sharaftaasna runtii aad aniga ii yeeshay waa mid aan ku hayo oo aniga lafteeduna YouTube-kayga aan kula ka soo muuqo ma YouTube-kaaga waa iiga soo horeeyay aniga qofkii ugu horeeyay dumar ma ihi laakiin adigu waxa tahay qofkii nina ugu horeeyay YouTube-kayga oo ka soo muuqda waa karaamaan dheeraade ragii kala leeyahay waa ku dhawaay channelka Aamino iyo asxaabtaada waan ku dhawahay maadaama ay tahay markii ugu horeysay ka soo muuqanay channelkaaga waxaan leeyahay marka hore bariidasan waasan iyo inaad caafimaad qabtaan baan idin wada rajeynaya dhamaantiin waan idinka qabnaa salaanta kulay idinkuna waad soo salaamaysan waan idinka qabnaa waan ku dhawahay channelkaaga runtii waxaan leeyahay asxaabta qaaliga ee Aamin Udug channel ku xidhan mar walba halay soo dhaweeyo channelkayga kor ha loo qaado oo macnaha ummadii kale ha loo share gareeyo si uu u gaadho dadyoga inaga maqan si markaa aynu ugu soo gudbino muuqaalo qurux badan marka Aamino waan dhawahay asxaabtaadana waxaan leeyahay mar walba madaxdiisa ما شاء الله ولكن أحمد داود هرتوا ما هتسنتهاي thank you so much أصحابتي إذا كحرن channel كيجا وحن إذا كرتشيني أسائي سودويسان يسكا قرح بدنا ولكن أحمد داود سودويسان إن شاء الله كوب اللينك يجي سنة فيديو هوستس إن شاء الله بنصور بدونا channel كسبوخ ده سبسكرايب لها وأنا أسوي أكتيف سنة وإيجا شق بدنا إيجا صعد بدنا كله أسوي مركز تأبديت بويه لكن أنا واسكم مشغول بدنا حلقة بين أسبوعي لبدي أسبوع بشي لبدي بلوت مربع فيديو سوق اليوم تانا ما كعور دارنا يا مرضان يصلي وحيدين إن شاء الله أنت وذا شوقنا أنت وذا شوقنا إن شاء الله بدنا ها يميل قروح بدنا يقولوا كنا قروح ديسة ما شاء الله ماشي أنا دم أنت عن شوقنا مريكان معهن يوروب معهن نيروبي نقول قيدين معهن وعاصمة مدة الصومالية وحورين شفت دولك هاجوية بريء لقى بكتة marka waa Muqdisho meesha saa u quruxda badan iyo wadanka saas u eg meel kale ma ah wallahi aniga laftirkaygu markaan Muqdisho Axmed Daawud waxyaabaha aan la yaabay oo igu la yaabka badnaa waxa weeye markaan magaalada Muqdisho imid si fikirkaan ka aaminsan horta waxa meel dadka lagu qasho oo lagu dilo oo dadka qarax mooyay wax kale laakiin dadku inay maskaxdooda saan u nooshahay oo meelaha saan quruxda badan meelaha saan u dhiseen garaysan dhulka saa loo habeeyay inay ka jirto Muqdisho maan moodan maalinkii iigu horeysay waxaan tagay beerta nabadda waan yaabay video ugu horeeyay horta aan Muqdisho ku duubay beerta nabadda ku soo duubay waxyaabaha marka iigu la yaabka badnaan la yaabay waxay ahaayeen meeshaan saa dadka loogu laayo oo saa qarx ugu dhacayo isma ogaba meel haday ka ololayso meel way ka qurux badan ما قرح وقادمو أو إحنا مر يدف دعوي لكن مركز كم مقنت هاي نول بقى كسرت مركز دتك كم مقيهين أنا وأيدي كان كهيست مركز عن كم مقنع يهد مركز عن إمد فرق وين بقول لحي مركز دلوك واحد لا بروباغندا شفت بروباغندا ده حوي بلا يلقى شيء لقى في دي ورك حنون وضن وورك من أحسن على الشيء وروح ذا بيلع ذا استعايل قبل شذا مركز صعدة معناها حديث هس إن بدن فوق اللي ساري لها waxa yaraanaya marka wixii ka aaminsanay oo wax wanaagsan noqonay marka adayna nagiba nimid oo maanta aynu ku noolahay ma sha Allah bulshadii naga dambeysay saas oo kale warka waxay bay leedahay meel laha aadin dagba ka samayso dag inta cimrigaaga ka dhiman ku noolow ما شاء الله dhulkaagu hooyo wax ka fiican ma laha marka dadka fikrada ay ka aaminsantiin wadanka haydin ka baxaan dhulku waa nabad xamar waa nabad wax dhibaato ka ma jirto qof walba wixii hiigsanaya horumar soo sameyn lahaa noloshiisa kor ugu qaadi lahaa meel sare u gaari lahaa idinkana insha Allah waxaan idin ka rajaynaynaa inta aan rajaynayay in ka badan binaadna gaarsiisaan dhamaantiin dadka channelka ku xiran videoga la gareeya
inta igu share gareeya share gareeya inta igu gareeya soo dhawaada leeyahay waxaan leenahay mar walba gurigeenu waa guriga Aamino Udug weey insha Allah